halkan ka salaamaya dhammaan marti sharafka ka soo qayb gashay xafladda furitaanka iskuulkan huda amal waxaa kaloo halkan ka salaamaya dhammaan waalidiinta ardayda iyo culimada halkan wada joogto bacda salaan waxaan u malaynay inta badan boqolkiiba 99 aad ay yaqaanaan dadka reer xaga dheere muddo 20 sano ayaan ku jiray waxbarashada laanta waxbarashada muddo 20 sano ayaan ku jiray marka waad garan kartaa muddo khibrad inta leeyahay qofkii ku jiray in wax laga weydiin karo waxbarashada iyo meesha ugu haboon iyo sida ugu haboon ee wax loo baran karo iyo wanaaga iyo muhiimadda ay leedahay waxbarashada iyo waxbarasho la'aanta muhiimadda ay kala leedahay sida uu maaragtay iskuulkan meesha uu ku yaalo waa meel aad iyo aad boqolkiiba boqol aad u wanaagsan oo ka faa'iideysan karaan dad walba oo xaafadan ka dhow aabbaha ama hooyada suuqa maaragtay meherada ku haysto ama ku haysata sababtoo waxaa la doonayaa ardayga in aad kormeertid ama aad la socotid ama xaaladiisa aad la socoto haddii aad maaragtay suuqa xaga dheer meel fog kama jiro iskuulkan amal xaafadaha sida E F D iyo K iyagana sidaas oo kale meel fog kama jiro waa tilaabooyin ay u jirtaa si aad u soo marto oo aad u ogaatid waxaana hubaal ah ama yaqiin ah muddadii waxbarashada intaa leeg ee aan ku soo jiray khibrad ahaan waxaan u leeyahay aan ogaanay iskuuladii qaranka iyo iskuulada gaarka loo leeyahay sida gaarka loo leeyahay farqiga u dhaxeeyo dad macnaha u darsay oo aad u gartay oo u bartay ayaan nahay marka sanadihii hadda u dambeeyay inta la bilaabay ama asaaska la bilaabay iskuulada sida qaaska loo leeyahay sida afka qaran lagu yiraahdo private schools iyo public schools alla kan weyn ee maaragtay dawladda ay leedahay natiijooyinka imtixaamaadka qaranka waxaa aad ugu hormarayay boqolkiiba 80-90 iskuulada qaaska loo leeyahay ayaa boqolkiiba boqol ku hormarayay waxbarashada natiijooyinka qaranka haddii ay noqoto kan dugsiga hoose dhexe iyo haddii ay noqoto kan dugsiga sare marka waa dareemi kartaan faa'iidooyinka ay leeyihiin iskuulada sida qaaska loo leeyahay ama private school sida aad u garanaysaanbo waxaan leeyahay marka waalidiinta aan kula dardaarmayaa waxbarasho iyo waxbarasho la'aan farqiga u dhaxeeyo qof walba macnaha wuu yaqaanaa wax hadda meeshan aan ku soo koobi karna ilaa gobolka ka dhacaya haddii hadda maaragtay qisooyinkii aan kala soo kulannay iskuullada qofka wax bartay heerarka ay gaareen kuwa haddeer maaragtay dowlad baa Soomaaliya maaragtay dowladda Soomaaliya ka coratay qaar maaragtay mudane baarlamaan ama wasiirro ka noqday dowladda iyada ah ama dowlad goboleedyada waxyaalo badan ka noqday ama hay'adaha hogaaminayo madax ka ah ee halkan qaxootiga wax ku bartay aad iyo aad ma la cadadi kara hadda haddii aan nahno waa xisaabineynaa kuwii aan waxba baranin heerka ay ku sugan yihiin qaar iyaga ka mid ah haddii aan sheegnana maaragtay waa wax aad looga xumaado ama looga murugoonayo waqtiga marka sidiisa banaanba waxaa la yiraahdaa waqtiga wuu ordaa macnaha wuu ordaa wax la gaari kara ma ahan sanad baa haddeer inoo bilowday berri waxaad arkaysaa isagoo oo dhammaaday oo gabagabe ah ayaad arkaysaa marka waxaa la doonayaa fursadda maalin walba ma taalo fursadda xilliga maaragtay ay kula gudboon tahay waxaa loo baahan yahay in aad ka faa'iidaysato waalidiinta waxaan leeyahay fursadda ayada ha laga faa'iidaysto ardaydana maaragtay iskuullada ha loo soo diro ardayda waxaan ku boorinayaa oon ku dhiirigelinayaa iyagana inay maaragtay sida waalidiinta ay ula tacaalayaan looga fikirayo maaragtay cuntadoodii qadadoodii quraacdoodii cashadoodii labiskoodii buugaagtoodii sida looga fikirayo waxaa loo baahan yahay waalidka isaga waxaa la rabaa berri ka maalin in aad maaragtay sida aad adiga maanta garabka lagu hayo in aad adi berri u qabato waa yeel buu noqonayaa marka waxaa la rabaa fursadda iyada in aad ka faa'iidaysatid iskuulki si fiican aad wax u baratid exercise-ki iyo maaragtay ama layliski lagu soo diro oo ka soo shaqeyn lagu dhaho waxaa loo baahan yahay in si wanaagsan aad aga soo shaqayso hadafkaagana uu noqdo mid sarreeya inuu mar walba uu noqdo ma jirto aniga waxa la yiraahdo ma karayo wax la dhaha ma jirto ardayga waxaa laga doonayaa arday walbo kan naasiri dhiganayo
kan dhiganayo fasalka koowaad labaad ilaa iyo 8 ilaa form 4 waxaa la doonayaa hadafkiisa inuu noqdo mid sare inuu noqdo si guul loo gaaro waan ku dheeraaday ayaan u malaynayaa ilaahay waxaan ku soo gabagabeynayaa ducaa kulankan aan kulannay allah nagu cafiyo dambigeena allah ku dhaafo dambi waalidkeena allah ku dhaafo Soomaaliya ilaahay nabad ha ka yeelo calankeeda mid babanaya oo ma aragtay 100% israacday oo nabadgelyo ka jirta allah ka dhigo madar buu ilaahay nasiya alxamdulillah mid ma aragtay afalaane allah ka dhigo wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh